marka hore Cabdisaaq kusoo dhaw aad baan mahadsantahay aad baan u dhowahay waan idin salaamayaa dhammaan asxaabta adiga iyo kuwiin dadini barnaamijkaba Cabdisaaq marka hore bal taariikh nololeedkaaga iyo magacaygu waxa weeyaan Cabdisaaq Cabdi waxaan ku magac dheerahay Dirisla Cabdi waxaan ku dhashay macnaha halkan dhex joogo ee magaalada Jijjiga gaar ahaan laantawada okay masha Allah Cabdisaaq waxaad ka mid tahay dhalinyarada social media caanka gaar ahaan barta YouTube-ka aad boqolaal kun oo dhalinyarada ku madadaalisid goorma bilowday inaad YouTuber noqoto wallahi waxaan bilaabay waan u maleynayaa ma hubo oo taariikhdii aan bilaabay ma sheegi karo laakiin si aad 2 sano ka hor waxaan bilaabay okay maxaa kugu dhaliyay marka inaad YouTube aad doorato professionalka xagga YouTube wallahi waa isku taal maleynayaa Soomaalideenu berigoor waxay taqaaneen Facebook aniguna markaas arkin aan qof social media soo yargalay ahay oo la yarba bartilmaameedkii bal YouTube ma created bade maadaama Soomaalidii oo dhanba Facebook wada eegtay wax cusub ma yar eegtido macnaha halka Facebook aga YouTube ma dhaqaaqday halka ma soo dhaqaaqay meel fiican iska noqotay dadkina wada barteen ba ma sha Allah sax kulay waxa sheegtay in 2 sano aad ku jirtid ugu yaraan 2 sano inaad isticmaalayso YouTube-ka dadka kugu xiran aad u badan yihiin saan wanahay labadaas sano marka barnaamijyada aad soo bandhigtay barnaamijyo noocay ahaayeen wallahi markii ugu horeysay ee horta social media ku soo biiray waxaan sameyn jiray umaleeyaa mujaajilay waxaas manaa waxaan iska dhigi jiray 2 qof mar hooyo iyo aabbo mar iyo ciyaal wax adu xasan iska dhigi jiray oo manaa wax fani sameyn jiray kadib waxaan bilaabay adu wax waraysi caadi ahayn manaa wax run aan ahayn laakiin waraysi aad fiican dadku daawadeen oo aman aan oran karaba waxaasan ku soo caan baxay kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo reaction ama heesa noqoto ama video caadi ah noqdo ama wax fiican oo kala baan noqday reaction ayaan bilaabay markii dambana marka ilaa imika reaction kun baa wada okay waqti intee leeyahay ku qaadataa muuqaaladaada iyo barnaamijyada inaad hagaajisid dadka soo gudbisid okay wallahi horta waxay ku xiran tahay inta video sameynayo berigii hore hal video aan dood ka soo dhigi jiray magaranaysaa oo macnaha halka video laga yaabaa inuu igu qaato 4 saacadood oo waliba aan ahayn de oran de waxan waa shaqo ahaan maan qabanayn waan iska edit gareynay oo iska baxay hadan doodad bay yiro iska tagay hadana waa sii waday oo kuma xisaabtanayn waqtigaas soo dhigaysa videogan ee toddobaaddan maadaama haysto waxa isku jiray beri waa soo dhigay ama saacad dambe saan wado baan maalin soo dhigi jiray laakiin markii dambe bilaabay inaan 3 YouTube yeesho oo hadana sii bilaabay inaan 3 YouTube isku dayday inaan maalin walba hal video soo dhigo ama 2 ama 3 ba waxay noqotay inaan wax yar dejiyo adoo meelaha 4 daqiiqo ugu qaataa halkii video okay taa macnaha waxay ka dhigan tahay professionalka ama shaqadaada dhan imika waxaad ku soo koobtay YouTube-ka may weli kuma soo koobin laakiin sanadan soo socda adu sanadkan bisha 6 ilaa waxa soo dhan adu ilaa bisha 7 bisha 6 ee isleeyahay YouTuber caadi oo mana YouTube-ka ugu noqo laakiin weli imika wax kala dhaxwada okay YouTube-kaaga waxaad ka dhex samaysaa sida maalmahan dambe aan ka aragnay business ama ganacsi sax oo dhar baa iibisa صح say ku suurta gashay markay shirkadda dharka ku dhex iibisay channel-kaaga ma dhar adiga aad lacagta la baxdaa mise dhar company ku dhiibteen aad isticmaalaysaa okay wallahi waa su'aal aad fiican caadi ahaan dharka 3 baad sameyn kartaa macnaha adigoona lacag bixin ba dhar waad iibin kartaa adigoo lacag bixiyeen dhar waad iibin kartaa company ku dhiiban karaa oo macnaha adigu share wada noqon kartaa laakiin ani taydu waxay ahayd markii ugu horeysay aan lacag bixiyay laakiin markii dambe waxaan ka dhigay bilaasho oo ilaa wixii la sameeyay mooyaane dharka miyna gadmeyn macnaha qof markuu wixii iibsado dalbado ay gadmeeyeen dharku kadibna magacii baa loogu qorayay ama wuxuu rabay kadibna qofkiisaas loogu iibinayay okay oo maasan tahay su'aasha kale aan ku weydiinaa waxay tahay YouTube-ka ama social media waxa ogtahay mar walba shuruucda inay bedelaan shirkadda YouTube-na way ka duwan tahay shirkadaha kale sanad walba shuruucda way bedeshaa wax cusub bay kusoo kordhisaa shuruuc cusub baa jirta soo baxday iminka صح caruurta sharciga caruurta iyo copyright-ka labadaba oo aad loo adkeeyay inta badanna muuqaalada reaction u badan yihiin so ma laga yaabaa in caqabado ay kugu keenaan sharcidan badan ee la bedelayo way keenaan marmarka qaarkood laakiin se aadka dhibto keento waxay ahayd tii caruurta sababtoo ah imika qofku haddii uu yar yahay ma daawan karo fiidiyoashiida comment kama bixin karo adu waxyaabaha qaar ma soo baxayaan aniguna waxba isaga kama faa'iidayo marka isagana waxba faa'iido male anigana waxba faa'iiday male taas baa dib keentay laakiin sida kale waa iska caadi waxaan idhahdaa laguma talagelin video inay caruurta daawato kadibna wixii caruurta ka weyn baa daawaday fiidiyoashiida imika okay shirkadda maxaa la yidhahdaa programkan YouTube-ka
mid maxaa la yiraahdaa dadka badankooda dhalinyarada hadda aad ugu soo badanayaan ma shaqo abuur ma noqon karaa ها لكن سي هدي شقة أبور وسوق الشيء من نوع كذا شقة أبور لكن سي هدي عاد أنت هتسك سوق الشيء عاد مركي دم بوحك فايدة ستريت والله إذا واحد شقة أبور نوع كرا ها لكن هذا وسوق الشيء هذا شقة كذا ميسيد ويرعد كان سامع ميسين عنه لكن هذا تسك بلوضي ويروح يكون في عناتي وأركتيد وحي أبى يروح كاسو قلقلها marka kadib wad bilaabi kartaa oo aan wax oran kartaa wax way taraysaa lacagta ka soo gasho way ku kaafin kartaa waxyaabaha iska dhasiin kartaa okay dhalinyarada inta badan waxaa la aaminsan yahay YouTube-ka marka la soo galo in isla markii hore lacag laga sameeyo sax marka qofka ilaa intee ku qaadan kartaa inuu maxaa la yiraahdaa YouTube-ka uu lacag ka sameeyo lacagtu ka sameynayana macnaha intee la ekaan kartaa qiyaas ahaan okay imika dadku way kala duwan yihiin qofna qof markii hore caan si ahaa qofna qof imika wax bilaabaya tusaale ahaan anigu imika 3 YouTube baan leeyahay 3 YouTube baa waan iska dabageyay markii ugu horeysay Idris Laacad markii ugu horeysay Idris Laacad dan bis Soomaali aniga meelaha waxay ku qaadanaysay 20 cisho in uu macnaha lacagta leeso fasoo sababta qof caan ah markaan dad ku yiraahdo fadlan xaga subscribe way saarayaan marka aniga 20 cisho 30 cisho inta way macnaha lacagta igu soo gaaraysaa aniga markaaba la saariyay الحيسيسكا لكن قف مادام عصب يهي waxay ku qaadanaysaa inuu 100,000 gaaro in uu views fiican helo marka qofku markuu caan yahay way kor adkaanaysaa laakiin qofku markuu caan yahay way dib yar tahay okay waa maasantahay ugu dambeyntii su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay shakhsiyan adiga waxaad ku jirtaa maxaa la yiraahdaa dhalinyarada ugu caansan sax waxaa kugu xiran markay aan qiyaas ahaan qiyaas 200,000 ha dhowrka 100,000 maxaa isleedahay kugu soo doorteen janaalka ugu soo xirmeen ay team Idris la u noqdeen okay wallahi waxaan oran karaa waa difference-ga macnaha dadku imika badanaa wax bay wada sameeyaan macnaha qof hadii la arko wax sameeynaya wixii laga daba sameeynaya ka darantan hadalkuna uu ka duwan yahay dadka qofba si buu yiraahdaa ma garanaysaa qofba macnaha ereyuu dhahaa marka maadaama anigiis yahay oo macnaha saan u hadlayo aniga un tahay oo macnaha meel kale ka soo eegayn ama aanan qof kale ku dayeenin macnaha anigu macnaha qofka hadlay waa Idrisle wuxuu ka hadlayna macnaha waa suu isagu rabo marka saan rabo maadaama waxaynayo uma oran karaa waa sababta qofku dadku waxay jecel yihiin wixii cusubna ma aha macale waxay jecel yihiin qofku inuu isagu ishaado hadii ay qofka arkaan isagoo meel kale wax ka soo qaadayo macnaha sidii qof kale u hadlaya waxay oranayaan qofkan waxa waa soo daawanaya sidii hebel buu hadlaya laakiin maadaama anigu is yahay oo anu saan doono u hadlayo marka sababtaas bay ku taageeraan ma oran karaa iyo de wixii ay jecel yihiin oo sameeyay macnaha markaan arko wajaraha commentiga markaan yiraahdo waxa uu yar jecel yihiin dadka macnaha kuwa nacabka ma aha kuwa nacabka xuma sameeyo laakiin se kuwa taageera markaan yiraahdo waxa bay jecel yihiin maanta waxa uu sameeyay aan ku arko commentiga wala fadlan diris waxa noo sameeyay wixii ma sameeyaa okay waa ma santahay ugu dambeyntii maxaad kula dadaamaysaa dhalinyarada ku soo biirayso social media ama shirkaddan YouTube-ka ku soo biirayso taageerahaagan maxaa salaam ugu tagaysaa ama shacabka ku daawanayo صح horta kuwa YouTube ku soo biiraya ama Facebook ku soo biiraya waxa uu lahaa anigu halka YouTube ku soo yarbata macnaha dadkan waxaan kula talin lahaa wuxuu doonaa ahaado ama qof aan ahaado ama yuna aan ahayn halka YouTube ka lagu soo yarbata oo lahaa sababtan taa u leeyna waxa weeyaan moral buu ku dhisay macnaha wixii hadii aad haba noqoto 10 riyaal ama 10 euro baa noqoto hadda inta ka helisid moral baad ka helaysaa ma garanaysaa laakiin Facebook yara adag tahay sad lacag u siishay waa laga helaa lacagta Facebook u jirtaa laakiin way yara adag tahay ma garanaysaa marka waxa uu lahaa dadka doonaya inay wax noqdaan xagga YouTube ku soo bado moral waad ka helaysaa macnaha wixii hadda lacag ka helisid wixii waad sameeyni macnaha moral bil lacag ku siinaysaa ma garanaysaa laakiin wixii dadka sameeynaysa waxba ka helayn iskar adkaanaysa wad caajisaysa sababta wixii faa'iido ma leh weeyaan macnaheedu marka waxa uu lahaa halka YouTube ka loo soo bato takalna waxa uu lahaa wax cusub na kala dad doonaysa YouTube noqotid way banaan tahay meeshu is aamin wax samee waa lagu daawana hooba dadku way jecel yihiin oo daawadaan inta waan kula talin lahaa dhalinyarada ama dadku waaweyn ay daawanaya ay taageeraya team Idrisna waxa uu lahaa aad baa mahadsantihiin la'aantii wax maniin marka iyagana waxa uu lahaa intee markoobaad mar labaad mar saddexaad aad baa mahadsantihiin okay kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cabdi oo maanta inagu soo booqday xafiiska RTN ee magaalada Jigjiga oo naga qayb galay barnaamijka hargalka Cabdirasaaq waa mahadsantahay adaa mudan walaal qaali